أخياري والسلامتين دمانتين رمضان مبارك وحمرا يا مالنتي أفراد ما شاء الله وحينو هالكان مانتيتو إلكوسو بنينا دمان dadkii waxay naga sugayeen akhbaartii garacad meesha ay maraysa dekadii haddaba dhammaantiin dekadii maantayto meel fiican ayay maraysaa jembigii labaad asagiina waa la rabay oo laba jembi horta ayagu diyaar bay ahaayeen iyo taagboodkii haddaa ogeedeen baraka taagboodkii loo bixiyey baraka 1 baraka 2 iyo baraka 3 waa soo socota iyo idinkaa leedinka rabaa marka dhammaan akhyaaray hadda jembigii labaad meel fiican ayuu marayaa oo waxa weeyaan waa meeshii ugu habooneyd hawshii si degdega ayay u socotaa waxaa kale oo hawshii haatan ku soo cusboonaaday in shaqada laga dhigo 24 saac in la shaqeeyo aysan shaqadu marnaba istaagin haddaba waa u jeediin meeshay marayso jembigii halkaas ayaa jembigii labaad maraya hawshii sidii la rabay ayay u socotaa waxaa moodaa in aysan aan kala istaag aysan lahayn hawshani marka u soo gurmadeen shacabka Soomaaliyeed ay u soo gurmadeen dekedan ayna ka qayb qaateen dhismaheedii dhaqaalahoodii iyo xooggoodiiba intaba dad badan oo fara badan ay soo booqdeen dekedani markasta oo markabku soo xirto dad baa soo booqanayay oo eegayay in arrintani ay rumowday iyo in kale waxay arkeen in arrintani ay tahay run sababtoo ah 4 sano ka hor meeshani waxay ahayd bad weyntii Hindiya ayay ahayd haatanna waa u jeediin meeshay marayso meel fiican ayay maraysaa dhismihii idinkana waxaa laydinka doonayaa in aad ugu tabarucdiin waxaa awoodiin ama aad ku darsatiin sheerka hadba midka ay noqoto haddana Ramadaan baa lagu jiraaya haddaa ugu tabarucdina kama si fiican oo waa ajir ilaahay ka ajarsiin doono aakhiradaada marka hadda sheekada waa u jeediin laamigii meeshuu marayo jembigii meeshuu marayo labadii jembiyo hore waa diyaar 2-3 markaba horaa ku soo xirtay waad aragteen haddana meeshaas kale iyaduna waa 2 sano diyaar ayay si fiican u noqonaysaa next year mid kamida midka xoolaha meesha jembiga laga rogo isaguna marka mar dhow waxay noqonaysaa deked caalamiya oo ka rajiiskaraysan adduun weynaha waa laga rajiiskaray already garacad port LLC geedii inaad aragteen baan u malaynayaa garacad port LLC geedii inaad aragteen baan u malaynayaa halkaas waa magaaladii meel fiican bay ayay maraysaa magaaladii markii la dego iyo bashii maaragtay dekada ay ku taalay xogaa bay isku jiraan horta aad bay u fiican tahay oo ma fiicno dekada iyo magaalada inay isku dhow yihiin xogaa bay magaaladii u jirtaa waana meel fiican bay maraysaa ismihii waa u jeediin meesha uu marayo laamigii laami bay u ekaato meeshii awalna waxay ahayd jamalo ayay ahayd meeshaasi dadkii ogaa unbaa u koleeba dadka kama sheekayn karaa marka haddaba waxaa laydinka doonayaa in idinku aad sheerkii weli waa furan yahay sheerkii baa laydinka doonayaa marka la xiriira shirkadda wadaagsin ayadaa maaragtay idin faafin doonto
wixii kaloo faahfaahina rabadaan mubaarak ayaan idin leeyahay khiyaarta dhammaantiin. rabadaankii maalintii afraad ayuu noo marayaa. waxaa weeye dad maaragtay deegaanka ku nool waa la afuriyey oo masaakiinta ah si fiican ayay u afureen oo dad badan ayaa ka qayb qaatay afurkoodii. haddana waxaa meesha ay dekeddu marayso waad u jeediin. daawasho wanaagsan dhammaantiin. waxaa idinka codsanaynaa in aad la socotiin, mar walba idinka soo gudbin doonaa channelkan. la socda fiidiyoyaashii meesha ay marayso dekeddu. haddana indhihiina ayaa shanta idii ah. meesha ay marayso waa meel aad iyo aad u wanaagsan oo shaqadu aad bay u socotaa. marka dee indhihiina ku arka oo u jeediin. waxaan kaloo aad moodaa in shirkadda wadaagsan ay hawl fiican qabatay. waa shirkadda keliya oo la tartamayso midaan abudabay magaceedii baa iga hoos baxay. PP World miyaa la yidhahdaa? haa, waa shirkadda keliya oo soomaaliyeed oo la tartamayso PP World. haatanna mar dhow haddaa mar ay gacantaan ay ku dhammayso shirkaddaas wadaagsan, waxaan ka codsanaynaa in ay shirkadaha sida PP World oo kale inay mid kuwa soomaaliyeed ay gacanta ku dhigto oo ay iyadu dhismaheeda qayb ka qaadato, maadaama ay wadamadii carbeed khaasatan imaaraadku ay weerar culus ku soo qaadeen waddanka Soomaaliya horumarkiisana ay kasoo horjeedaan. marka waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in aynu shirkadani dardargelino oo aynu anagu maamulanaa dhaqaalaheena iyo xoolaheena. shirkadda PP World waddan walba oo ay wax ka qabato oo ayada aan waddankeeda ahayn way xanibtaa si ayada ay wax kasta u soo maraan oo wax containershiba uusan u imaan waddanka Soomaaliya. halkaas ayada lagu rago dekedeeda, kadibna doon xuna la soo saaro. halkaasna doontii aysan culays badan qaadi karin, qaarna ay badda ku qallimaan. marka waxaan idinka codsanaynaa shirkadda wadaagsanay in aad hawshaan dardargelisiin. rabadaan mubaarakna waa idin leenahay. rabadaan mubaarak. rabadaankaan rabadaankiisa kalena ilaahay khayr ha nuu gaarsiiyo. wixii kaloo cusub oo wararna waa idiin soo gudbin doonaa. khiyaare sidaas iyo nabadgelyo.